ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalado adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca wadanka. waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan carruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. muddo ka badan 10 sano ayay wakhtigeeda waxaa Colonel Faadumo Cali Raage oo lagu naanaysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee Danab. sidoo ii sheegay wasiirka gaashaandhigga waxa ay gelisay wakhtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 carruur oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, ayadoo 22 bari cunug dhalana oo umulla ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. sidaasi waxaa yiri wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oo kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho. gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badan waqtigeeda ugu badan aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. runtii aniga waa igu horeysay xilliga ay kusoo biirtay. waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Abdullahi Yuusuf uu ka ahaa Allah u naxariistee madaxweyne ee dowladda ku meel gaarka xilligaas jirtay. sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirtayna lagu sheegay in saygeeda runtii oo lagu magac diri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Yakshiid xilligaas. nimankan ururkan runtii dhibaatada ba'an ee ummadda Soomaaliyeed ku haaya ay markay dileen kadibna ay go'aansatay in ay iisha ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 6 ka mid ah ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdullaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxaasi. Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood. saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay 2 nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaasheed Milyuun Maxamed. waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10keeda canug ay sidoo kale gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda. abaayo gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada u sii socotay. meel waxaa jirtay jahadid checkpointia oo daljirka dahsoona meeshii ayadoo maraysa abaayo baa qaraxa meeshii ku haleelay. ayadii saygeedii ee meesha ku dhintay Allah u naxariisto. 2 wiil staff oo la socotay waxay kala haayeen magacyada waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidamada Danab. asna sarkaal ayuu ahaa. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer ku soo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab looga xoreeyay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle. shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afgoy shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsomta iyadoo markaasi luqadda ee qalaad ay taqaanay. waxaa markaas Sheekh Maxamuud madaxweyne noqdeen sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliye. waxay noqotay koowaad guutada howlgalka oo xilligaas lahay qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo Shabeellada Dhexe oo Hirshabeelle hadda la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliyaha howlgalka ee ururka afraad Danab hadda ay ka tirsaneed. runtii ay ka mid ahayd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa u naxariistee ninkeeda oo saygeeda hadda lahay Bashiir Shariif. sidoo ii sheegay Cabdixakiim Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdullaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Mareykanku sida gaarka ay u tababareen ee Danab. waxa uu ahaa laba xaasle si lamid ah xaaskiisa Faadumo Cali ayaa asna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka. wallahi waa murugo naxdin leh. labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan. waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan
waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa dheehan kartaa qof marwe ah gurigeeda jooga, hooye ah, cunug yar oo sabi oo saqiir oo neef ay muujinaysa saaka kasoo baxday, ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhexbaxday kasoo tagtay, in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay. allaha u naxariisto. waa geeri naxdin leh, dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. waana ka tacsiyeyneynaa. gabadha labaad khaasatan oo ka tagay shariif cabdullaahi oo u tacsiyeyneynaa saaciido walaasheen. waana rajeyneynaa inay wax badan qabsoomaan. dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab, sidoo kaleetana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan. laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo runtii la dejiyey oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro. oo qofkii dhinta, qofka darajada oo markaas uu ku dhintay ay ku xiran tahay, waxay ku xiran tahay sheegay qofkii hadii qof kale oo qaangaar ah uu jiro ciidankii loo qoro oo sheegay ciidanku ka mid ahaa ayaa ka mid tahay. waxaa jira sheeg system, waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo. walow annaga aan la socota xaaladeena meesha ay maraysa dowladnimadeena soo qabashada maanta aan ku jirna ay aad iyo aad sheeg adiga meel dheer aan ugu imaanay. laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii, nidaamkii, qaabkii wixii waa noo degsan yihiin. qofka particular lisan oo kaloo halgamaa ah oo noocan uu soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto, loo tacsiiyo, kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalena loo qabtan meesha way ku jirta. laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo sheegay qof kastoo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan maray ayaa jira. tan iyo intii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xooga dalka ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab. waxaa jira kuwo badan oo naafa ku noqda gudaha wadanka, qaarkoodna marxalado adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu tilmaamay.